sagaashameeyadii ayaa waxaa lagu xiray dalka Mareykanka kadib markii lagu helay dembi ah in uu ka ganacsado daroogada waxa uuna xabsi ku jiray muddo gaaraysa 9 sanadood. King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janaalka King 252 kusoo dhawaada gacmo furan haddii aad hadda nagu soo biirtay kusoo dhawow subscribe si aad ula socoto warbixinada xiga haddii la raali ka noqdo. booliska dalka Netherland ayaa xiray nin aad dunida looga baadigoobayay. ninkani oo lagu eedeeyay inuu ka mid yahay ragga ugu waaweyn dunida ee ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyo drugska qaasatan qaaradda Aasiya ayaa waxaa horey u shaacisay dawladda Australia waxayna u jireen warqadii lagu soo xiri lahaa. Master Tracy G. Loeb oo asal ahaantiisu ka soo jeedo dalka Shiinaha balse haysta dhalashada dalka Canada ayaa la sheegay in uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa drugska taas oo qiimaha ka soo gala suuqyada Aasiya lagu sheegay adduun lacageed oo gaaraya 70 bilyan oo dollarka Mareykanka. ninkani ayaa lagu sheegay in uu ka mid ahaa raggii baxsadka ahaa oo ay ku raad joogeen ciidamada booliska caalamiga ah ee Interpol waxaana lagu soo xiray garoonka Schiphol Airport ee magaalada Amsterdam. dawladda Australia ayaa dalbad doonta in loo soo gacan geliyo ninkani waxayna sidoo kale ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in ay rumaysan yihiin ninkani shirkadda uu madaxda ka yahay ee lagu magacaabo Sam Gore Syndicate ay ka mas'uul tahay boqolkiiba 70 drugska la soo geliyo dalkaasi Australia. 56 jirkani ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay El Chab qaaradda Aasiya kaasoo lagu magac daray nin isagu u dhashay dalka Mexico ee ka ganacsan jiray waxyaabaha maanka dooriya. booliska dalka Australia ayaa la sheegay in muddo bil ah ay ku raad joogeen Master Tracy ka hor inta aysan xirin booliska Netherland xilligaasi uu ku sii jeeday dalka uu dhalashadiisa uu haysto ee Canada. war qoraal ahaa oo ay soo saareen booliska dalkaasi ayaan lagu sheegin magaciisa balse waxa ay xuseen in warqad lagu soo xirayo loo jaray sanadkii 2019. talaabada ay qaadeen booliska Netherland ayaa waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu wanaagsan iyagoona la sheegay in ay aad ula shaqeynayeen ciidamada Interpol. markii horeba ninkani waxa uu ka mid ahaa dadka aadka loo baadigoobayo waana la xiray kadib markii aan helnay xog sirdoon ah ayuu yiri afhayeenka booliska ee dalka Netherland uu waramayay. warbixin ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ninkani lagu sheegay in sanadkii 2019 uu ahaa ninka lagu baadigoobka badan yahay caalamka. Reuters oo soo xiganaysa ilo ku dhow qaramada midoobay ayaa waxa kale oo ay sheegeen dakhliga ninkani soo galay sanadkii 2018 in uu gaarayay 17 bilyan oo dollarka Mareykanka. talaabada ninkani lagu xiray ayaa waxaa la sheegay in ay iska kaashadeen ku dhawaad 20 dawladood oo ay horkacayso dawladda Australia. Master Tracy G. Loeb ayaa la sheegay in uu yahay nin aan wax badan laga ogeyn sida Al Chapo oo caan ka ahaa dunida. sanadihii dambe waxaa lagu soo waramayay in ninkani uu ku noolaa magaalooyinka kale ah Macau, Hong Kong iyo Taiwan. sagaashameeyadii ayaa waxaa lagu xiray dalka Mareykanka kadib markii lagu helay dembi ah in uu ka ganacsado daroogada waxa uuna xabsi ku jiray muddo gaaraysa 9 sanadood. warbaahinta dalka Australia ayaa xariga ninkani ku tilmaantay mid aad muhiim ugu ah booliska dalkaasi oo muddo dhan 20 sano ku raad joogay sidii ninkani ay ku soo qaban lahaayeen maadaama uu ka mid yahay ragga ugu sarsareeya ee drugska soo geliya dalka Australia. inta ayaan ku soo koobaya warbixintan inta warbixinta xigta ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.